كم قصة تترى جاءت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله والله waxaynu kusoo guda jirnay duruusteennii 30 qisatan bilisaan nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam 30 qiso oo ku sugnaaday carabka nabiga alayhi salaatu wasalaam. waxaan walaalayaal maanta isu qaadanaynaa xalqadeennii waxa weeye 16aad xalqadeena 16aad walaalayaal waxa ku saabsan tahay walakum fiha ma tashtahi anfusukum. ilaahi subhanahu wa ta'ala quraankiisa waxa uu ku yiri ولكم وحيد سجناد أهل الجنة فيها جنة دحدة ما تشتهي كي أيضا أنفسكم وحوي إن فيه النبأ إلهي سبحانه وتعالى ولعوانك وحوي درسه واسداوي. حديثك وحوي أبو هريرة ورني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوي كان يوما مع المها كمدا أيا وحاء هذا يحدث ورمى يا أيها هذا النبي وعنده رجل من أهل البادية وحان النبي عليه الصلاة والسلام لتشوغين وحوي غير بادية. dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka waramay oo uu ka sheekay anna rajulan oo min ahli aljannati ahlul jannaha kamida istaadana rabbahu rabbigiiba waxa uu weydiistay fi zarci waxa weeye inuu wax beerto ayuu rabbigii weydiistay jannada dhexdeedu ku weydiistay faqala lahu nabigu waxa uu ku yiri faqala lahu ilaahay waxa uu ku yiri alastu fi ma shi'ta war waxa weeyaan miyaanay kuu sugnaanin wixii aad doontay qaala balaa haa buu yidhi walaakinii uxibu waxaan jecelahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu soo bandhigay nicmooyinkii uu jannada waxa weeye ku siiyey dabeetana ilaahay markuu jannooyinkii iyo nicmooyinkii uu siiyey uu galladiisii uu tusay ayaa waxa uu yidhi qaala balaa haa ilaahay waxa weeye waxaasoo nicmo ayaad siisay walaakinii uxibu ilaah waxaan jecelahay an azraca inaan wax beerto قال وحاو يري النبي عليه الصلاة والسلام فبذر وحوي وحايو بيرتي الله أقلاده إلهي أقلاده فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده وحويا مركي بيرتي أيا وحوي الشيء وحوي أتكاتي وحوي ماركتي مريه أيا وحوي مركي بكسوقاي فكان مثال الجبال وحوي بيرتاس dhererkeeda iyo dhirtaas inta la leeyihiin waxa weeye sida buuraha kale ayaa waxa weeye ahayd baa nabigu calayhi salaatu wasalaam leeyahay fayaqulu allah ilaahi waxa uu ku duunaka ibn aadam waxa weeye ibn aadamow waxa weeye wax kale sida lagu qanciyaa waa adag tahay oo bimaana waxa weeye jannada wax ka sokeeyo oo ku qancinaya waxa weeye ma jirto fa innahu la yushbi'uka shay'un waxa weeye shay ku dharginaya ma jirto ilaahi subhanahu wa ta'ala jannadiisa aan ahayn فقال العربي نكي رير بادية أي نبي وحوي لفدي أيا وحاوير والله إلهي بان كل عارنا يا لا تجده نكاس نقن مايو إلا قريشيا ني وحوي رير قريش مويان أو أنصاري أنا ما رير وحوي أنصاريات نكا إلهي بيرت جند كوي ديستي أما وحوي قريش أيو كسوتش هذا أيو نكي رير بادية هايري أما وحوي أنصار بكسوتش هذا فإنهم أصحاب الزرع يقوم حيا لو ضد بيرلي وبيرت جعل ويان وأما نحن فلسنا بأصحاب الزرع وحوي نكي وحنا نو هدان رير بادية أن حولها سان اسكا دقنا ما جعلين وحوي بيرها فضحك النبي صلى الله عليه وسلم نبي waa ku qoslay qowlka waxaway ninka maaragtay reer baadiyaha arinta koobaad wala la yeelayno ka faa'iideysanina waxaway qisadan iyo waxaway xadiidka nabiga kaleey salaatu wasalaam tashwiiqu rasuul li asxaabihi wa ahli albadiyati bil hadith an al janna wa maladatiha nabiga kaleey salaatu wasalaam jeclaynta waxaway uu jeclaysiinayay asxaabtiisa waliba khaasatan kuwada waxa weeye reer baadiyaha jannada iyo waxa weeye nicmooyinka dhexdeeda yaalay arinta labaad walaalayaal inuu ka faa'iideysanayna waxa weeye fil jannati yatahaddathu an-naasu ma'a rabbihim wa yuruddu 'alayhim ahlul jannahu ilaahi subhanahu wa ta'ala bay la sheekaysan doonaan oo la hadlayaan si waxa weeye toosa ilaahina subhanahu wa ta'ala si toosa ayaa waxa weeye ugu jawaabaya xadiiskuna waxa weeye qisada xadiidka aynu soo qaadanay ayaa waxa weeye arintaas inay ka dhex muuqataa iyo waxa weeye nusuus kale oo fara badan waxa weeye sugnaatayba arinta saddexaad walaalayaal waxa weeye aynu ka qaadanayna qisadan waxa weeye من كرم الله إله سبحانه وتعالى دقيسة وحكمده أنه يستجيب لشهوات النفس في الجنة وحوي إله سبحانه وتعالى نفتن أنه كقن عندنا جنة ضدك وحوي يقلا
وحوي وحكستو أو أي ضلبضان ولذا طلب الرجل محايا لأن كان وحو ضلبضي أن يزرع إنه وحس كبرته فاستجاب له الله إلهي سبحانه وتعالى كأتشيبي إنه وحوي الضلبضه قال تعالى إلهي سبحانه وتعالى وحوليه ولكم وحيدين سجناديه الجنة وفيها جنة دحديدة ما تشتهي وحيدون أنفسكم نفيهن ولكم وحيدين كسجناديه ولبا جنة دحديدة فيها يد دحديدة ما تدعون وحوي شيء كستوا أو يارتان وعدوني سان بإله سبحانه وتعالى وليه أرنت ولا لي الأفراد يعني كفى أيدي سنة قصة حديثك وحويان الحديث يفيد أن كل ما اشتهي في الجنة من أمور الدنيا ممكن فيها وحويان arrin kasta oo waxa weeye qofku uu doono ahlul jannaha oo kamida waxa weeye umuuraha dunida waxa weeye uu ku isticmaali jiray ama xagga dunyada uu ku yaqaanay inuu waxa weeye jannada ka heli karo qaalahu al-mulahhab waxa weeye ayaa sida yiri waxa weeye markuu fathul baariga waxa weeye sharaxayay fi sahih al-bukhari waxa weeye walaalayaal arrinta shanaad inuu ka faa'iideysanana waxa weeye man ta'ammala fi an-nafs al-bashariyah fi ad-dunya wajada annaha khuliqat lil-akhirah qofka waxa weeye u fiirsada nafaha waxa weeye ibn aadamka wuxuu ma aragtay dareemaya oo garanaya in loo abuuray waxa weeye naftan aakhiro la yashbacuha shay'un waxa weeye wax kale aan waxa weeye ku raali noqon naftan aan ku dhargeyn walaw malakatid dunya bi akmaliha hadii dunyada oo dhan xataa loo dhiibo kuma dhargeyso oo raali ku noqon mayso illa bil jannati waxa weeye jannada inay gasho wasu'aali rabbigeedna waxa weeye si toos ah iyadoo ay wax weydiisato arinta walaalayaal xaadeen waxa weeye ka faa'iideysanayna waxa weeye dhixku rasuul sallallahu alayhi wasallam qosolkii rasuulka min qawlati al-arabi oo nabigu ku qoslay waxa weeye ninka reer baadiya hadalkiisi wastimaacihi iyo nabigu waliba inuu ogolaaday inuu waramo oo waxa weeye arinta uu ra'yi ka dhiibto oo waxa weeye nabiguna uu dhageystay waxayna tusinaysaa تواضع النبي عليه الصلاة والسلام أسأل الله لي ولكم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل بل الفردوس الأعلى وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم